gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee wadani ee gobolka Togdheer Maxamuud Xasan Saleebaan Doob oo warfidiyeenka kula hadlay xarunta xisbiga ee magaalada Burco ayaa fariin ku aadan diiwaangelinta codbixiyayaasha oo 27 bishan Diseembar ka bilaabmaysa guud ahaan gobolka Togdheer iyo deegaamada hoos yimaada u diray dadweynaha kala duwan ee gobolka Togdheer. gudoomiye Doob ayaa waxa ugu baaqay qaybaha bulshada in ay isdiiwaan geliyaan waana kan gudoomiyaha oo fariintan iyo kuwa kala badiraya. waxaynu bilaabaysaa diiwaangelintii 27 bisha dhammaan dadweynaha gobolka Togdheer waxaan ugu baaqaynaa xisbi ahaan inay isdiiwaan geliyaan cidii aan haysan kaarka codbixiyaha. muwaadinka waxa uu muhiim ah inuu qaato kaarka codbixiyaha oo wax ka go'aamiyo talada dalka cidda uu isagu u dhiibanayo. waxaynagu soo foole oo aynu wada ogsoonahay 27 bisha inay bilaabmayso diiwaangelintii gobolka Togdheer. dhalinyarada iyo dadkii hore aan u qaadan intaba waxa laga rabaa iyo cidii uu ka lumay loo bedelayo intaba waxa laga rabaa ay qaataan oo ku dadaalaan. waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadweynaha inay la shaqeeyaan goobaha komishinka jooga ee dadka diiwaan gelinaya laguna gacan siiyo shaqada ay hayaan. waxaan kaloo dadweynaha ugu baaqayaa gobolka Togdheer inay la shaqeeyaan ciidanka nabadgelyada oo ay safafka iyo goobaha la joogo ay kala shaqeeyaan amniga. baaqaynaa inta ay diiwaan gelintu socoto in waalidiintu xil iska saarto daayarta goobaha diiwaangelinta codbixinta laga qaadanayo ay geeyaan oo ay la socdaan qof waliba inuu qofkiisii kaarkii qaatay. taas waxay macnaynaysaa inaad hadhowto go'aamin karto cidii aad dooran lahayd. haddii kale waxaad noqonaysaa qof aan ku lahayn mustaqbalka dalka iyo go'aankiisa inaanad daami ku lahayn. inaynu iska buuqno oo dubaana iska qaadano xilliga campaign adigoo aan haysanba kaar waxba kuma tarto. dhammaan waxaan ku boorinayaa dadka maxay maanta gobolka Togdheer jooga iyadoo abaari ay jirto iyadoo ay ku mahadsan yihiin dadkii inoo hadlay ee hadday xisbiyada yihiin iyo hadday madax dhaqameedka yihiin xukuumadaba tahay cid kasta oo gobolka Togdheer u hadashay ay ku mahadsan tahay sidii loola dadaalay. haddana waxa la isla qaatay oo komishinkii qaatay in diiwaangelintii la galo. marka dadkeeni sidii aynu u doonan lahayn iyo sidaynu uga hawlgeli lahayna innaga inoo taala nin la tumay tala jirtaa baa la yidhi. gobolka Togdheer gobol baa loo tartamayaa degma loo tartamayaa. tartanka aynu ka qayb qaadano. gudoomiye Doob oo hadalkiisa sii wata ayaa sida oo kale waxa uu fariin baaq ah u diray komishinka doorashooyinka qaranka Soomaaliland. fariintaasi oo ku aadan diiwaangelinta lagu wado in ay 27 bishan ka qabsoonto ama ay ka bilaabanto gobolka Togdheer iyo deegaamada hoos yimaada. waxaan kaloo halkan uga soo jeedinayaa komishinka qaranka iyo ka gobolkaba sanaaduuqdu la dhigay goobuhu kollayda way xadidan yihiin laakiin waxa loo baahan yahay waxa jira ADB gobolka Togdheer ku soo kordhay oo ilaa 5 ADB oo dhinaca koonfureed magaalada ka xiga oo aan sanaaduuq lahayn. dadkaas waxay u baahan yihiin waa muwaadiniin waa dad xoolahoodii baxeen inay xuquuqdooda helaan bay u baahan yihiin. xuquuqdooda muwaadinimo inay helaan bay u baahan yihiin. arrinka komishinku u yaala taasina sidii loo maareyn lahaa ama gaadiid loogu diri lahaa maxay tahay de ku filan xukuumadda ay ugu diri lahayd maadaama dadku ay yihiin dad qaxoontiya ama maxay tahay komishinku goobo fidsan oo matalan sanaaduuqda B iyo A iyo C haday meel wada yaalaan matalan B oo kala iyaga loo dhigi karo ama C oo kala loo dhigi karo. taasi waa arrin farsamo komishinku leeyahay. waa fahmi kaysa xirsi bulsha TV Burco.